magaceeda waxaa la yiraahdaa daar ciidanka ilaalada qaybta ilaalada waardiyaha hadba haysa ayaa halkan joogaysa. hadduu hoosta ka soo galo wixii soo jeedana waa aragtaan wata halkaas ka tooganaysaa. الله أكبر. كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. هدرنا سوجدان ميل بور عين فورنا. وحنا نوسعنا إلى نشرحنا قوبتي لبعض وتاريخية كنسن مجال الفعوين في الكوين تلح هالك كان magaceeda waxaa la yiraahdaa daar ilaalo. dhismaha dheer ee burburay ayaynu fuulaynaa. duqeyntii ingiriisku u geystay ama gumaysigu ayuu saa ula burburay. in aad fuusho isagoo burburay ayaa waqti dheer qaadanaysa. halkan waxaa la yiraahdaa daar ilaalo. daar ilaalo waa buurta dhakadeeda ku taalla magaalada Taleex. buur salkeed bay ku taallaa. marka sayidku wuxuu ahaa nin aad u dhiifoon oo istiraatiiji ah oo meesha uu degaayo meel laga fiirsaday oo ciidan ahaan meel munaasab ah. daar ilaalo marka waxaa laga dhisay waa dhismo aad u weyn oo laga dhisay buurta magaalada ku taalla ciidankuna hoos deganaa buurta dhakadeeda laga dhisay. ilaalo waa fahmaysaa waa gaar hay waa meel cadowga dadka ilaalinaya ay degan yihiin. marka waa meeshii waardiyuhu deganaa weeye. aad bay u badan tahay. waxaa laga yaabaa in qofku ilaahay oo sakhire mooyaane inaad soo fuusho waa kugu adkaanaysaa. halkaa inaga hooseysa waa qayb dhismaha ka mida oo si qurux badan oo farshaxan ay u dhisnayd. duqeyntii ingiriisku geystay qaatalahullah ayay saa ula burburtay. sidaan idiin sheegay shaqada ay qabanayso waxaa weeye ciidanka ilaalada qaybta ilaalada waardiyaha hadba haysa ayaa halkan joogaysa. runtii waxaa xusid mudan sayidku dee meelo badan iyo xeryo fara badan buu dalka ku lahaa. waxaana loo baahan yahay haddii xaaladi jirto ama dareen colaadeed jiro in la isla jaan qaadsan yahay la wada socdo baa la rabaa. oo xeryaha Soomaaliya ku yaalla oo dhan dawladdu ay mar wada gaadho. maxaa la sameynayaa marka kaasoo qala halkan ilaa la saacadood intaa halkaa ka dhaxaysa waxaa ku yaalla meel kasta xera ku taala. telefoon ma jiro, taar ma jiro, farduhu kama gaaraya haddii meel ka mid ah oo soo gala. maxaa la sameynayaa waxaa la sameynayaa halkan waa xaruntii u weyneyd. xarunta labaad waxay ku taallay meel la yiraahdo geedo midhale oo magaalada Garowe dhankeeda dhoodida soo xigta. xarunta kale oo ku xigtana waxay ku taallaa Dalyare magaalo aad u fog weeye oo Laascaanood wax yar u jirta. xarunta afraadna waa Laascaanood halka la yiraahdo buurta sayidka. xarumuhu sidaasay u taxanaayeen. waayeelku waxay noo sheegeen ilaa Caynaba inay sii taxanaayeen. marka ay xaaladi jirto ama col la dareemo halkan waxaa la sameynayaa oog baa la shidayaa, dab baa la shidayaa. dabkaasi wuxuu fariinta u geynayaa xerada ku taalla geedo midhale. geedo midhale markaasay dab shidayaan. dabka geedo midhale ka baxa wuxuu u baaqayaa oo ku dhacayaa meesha la yiraahdo Dalyare. qofkii garanaya labada meelood aad bay kala fogyiin.
dalinyare markii fariintii u dhacdo oo dabka ay arkaan iyagoo dab bay shidayaan dabkaasi wuxuu arkaya qolyaha laasacaano ee Buursayd sidaa ku wad xagga hadday jiraan iyo xagga hadday jiraan meel kasta oo la degan yahay dabkaas wada gaaraya marka waa ateenooyinkan hadda aynu isticmaalno kale ama telefoonada tan telefoonkan hadda wax walba gaarsiinaya yacni booska waxa ugu jiray sayidka iyo daraawiishta ilaahay ha u naxariisto dhammaantoode inay dabkaas ku gaarsiiyaan oo la isugu baaqo marka dalkii wuxuu gelayaa xaalad dagaal ama heegan baa la wada gelayaa waxaynu gelaynaa qaybta gudaha insha Allah halkaas meesha cade salaaxan ismaha cade salaaxan ee qaybtan ka mid ah weli waxaynu ku jirnaa daar ilaalo halkan waa meel salaaxan oo laba meelood weeye halkanina waa meel kale marka sida aynu qaybta weyn ku arki doono oo ciidanku fadhiyay ee silsiladda waxay u muuqanaysaa inay tahay meel hawl gaar ah lagu qaban jiray ama hadhuulka oo kale meelaha hadhuulka maartay lagu guro oo lagu kaydsado inay ahayd bay u badan tahay qaybta gudaha dhufayska ah ayaynu u daadegi doonaa insha Allah waayahay meesha tan gudahaynu u galaynaa waxay isugu jirtaa ilaalo iyo dhufays ilaalo iyo dhufays bay isugu jirtaa halkan haddii aad aragtaan wax yaab leh waad ku arkaysaan waa meeshii rasaastu ay ka baxaysay ee bannaanka u baxaysay ciidanku markuu halkaa la soo weeraro waa aragtaan dhuumaha waaweyn waa daldaloolaan halkan way leedahay halkaas way leedahay halkaas way leedahay taasi waa dhuun xabaddu ka dusayso tani waa dhuun bannaankay u baxaysaa xagga waa la mid tani waa dhuun waxaasoo dhan waa dhuumo sida aynu arki doonno qaybta dhuumaha oo xabaddu ay bannaanka uga baxayso cadowga laga tooganayo waxay u sameeyeen 3 raar bay leedahay qayb ugu sarreysa iyo qayb dhexe iyo qayb hoose tan hadda markaad eegtaan labadana waa kala sarreeyaan inkastoo ay dhinaca isku hayaan laakiin haddana way kala sarreeyaan tanaa sarreysa meesha waa la dumiyey tanaa hooseysa tanna waa halkaas iyadna waa sii hooseysa tan waa aragtaan labadana masina waa kala hooseeyaan ilaa cadowgan aad tooganaysid hal meela ma taagna oo mar buu kugu dhow yahay mar buu meel dhexe taagan yahay marna waa meel dheer marka hadduu meel fog jiro meeshaa sare meel saraa loo ta sare raarka saraa laga tooganaya xabadda la saaraya hadduu soo dhowaado xoogaa oo meel dhexe yimaado dhuuntaa dhexaa xabaddu ka duulaysaa hadduu hoosta kaa soo galo wixiiba soo jeedana waa aragtaan wataa halkaasaad ka tooganaysaa waa dhismo weyn kulli waad aragtaan hadda soo loo burburiyey daar aad u dheer weeye qorshaha loogu talagalana wuxuu ahaa in la isugu baaqo oo baaqa la gaarsiiyo meel dheer xaggan markaynu u sii soconno waxay leedahay waa kuwa dhuumihii meel kasta waa haystaan waa lagu talagalay ciidankaasi inuu xalaayo cadowga bannaanka laayo isagana waxba la gaarsiin iyo dhufayska adag buu ku jiraay haddii aad dhagxaanta eegtaan waad yaabaysaan dhagaxaasi hadda aniga waa igu dhow yahay kolley dee xagga balaarka iimaba dhowow intaasuu isu jiraa xagga dherarka iyo xagga weynaanta qofka dadka u weyn buu dhagaxu leegyahay dhismayaashoo dhanna waad arki doontaan xaggaasaynu insha allah sii eegi doonaa halkan waa 2 qudbi bay leedahay meesha tani labadaa qudbi waxaa suuragala inay tahay ilaahay baa oge meelihii hadhuurka kulle waayeelku waxay noo sheegeen meelaha noocan oo kala inay tahay meel hadhuurka iyo saanadda ama ciidanku waxa uu cunayo lagu kaydiyo ilaa waxaa loo baahan yahay wax bannaan ka imaanaya ma jiraan
marka wixii la haysto waa in meel la dhigtaa ka meelaha kan oo kale qaabka u samaysan inay meelo kay tahay oo hadhuurka iyo jicsanka lagu guran jiray bay u badan tahay guud ahaan inagoo aan soo koobi karin halkana waxaynu kaga ambabaxaynaa daartii labaad oo magaceeda la yidhaahdo daar ilaalo daar aad u dheer bay ahayd ilaa laasacaanood bay fariinta dabka marka la shido ayay maaragtay gaarsiin jirtay insha allahu tacaala haddana waxaynu aadi doonaa meel aad u yaab badan cajaa'ibu dahar meel yaab badan oo qaabka ay u dhisan tahay iyo inta ay isu jirto say u weyn tahay runtii aad ila arki doontaan aanna ka cabsanaya ama aan ka welwelayo inaan erey bixin saxa erey bixin ku tooboon oo istaahila aan siin kari waayo insha allahu tacaala magaceedu waa maxay markaynu gudaha u galnaad arki doontaan